Ku soo dhawaada channelka Somali Bitcoin. Channelkan waxaan ka wada hadlaynaa xagga cryptocurrency-gu iyo Bitcoin-ka maraya maalin kasta. Channelkan waxaa lagu talagalay dadka af Soomaaliya ku hadla adduunka meel kasta ay joogaan. Haddaad channelka ku cusub tahay, like iyo subscribe taabo si qofka lagu faa'iidaysan karo. Maalin kastana video cusub aan soo duubnaa. Aad iyo aad ba mahadsantidiin. Maanta waa maalin kale, soo dhawaada. Maanta waxaan eegaynaa haddana cryptocurrency oo dhan baan wada eegaynaa. Waa aragtaan waxa ugu fiican maanta waa Ethereum baa soo noolaanaya. Ethereum wuxuu kacay wax kale ma waxa la yiraahdaa marka xasaasad waxa la yiraahdaa Ethereum merge. Laba Ethereum baa la isku daraya oo la isku daraya marka la isku daro systemkii Ethereum kala isticmaalaba si dheeraynaya oo fast buu noqonaya. Marka waad garanaysaa Ethereum kan waxa weeye waa technology lagu talagalay in lagu sameeyo appka, website-yada iyo combination inta badan isticmaalaan. Marka haddana qofku doonaya inuu iibsan kara Ethereum marka wuxuu ka dhigan karaa shareholder buu ka noqon karaa, investor buu ka noqon karaa, oo maalgelin buu gashan karaa, maalgelin lacag buu gashan karaa. Marka waa wax nimanka aad very popular hadda la arko waa kan waa Ethereum waa ka idin tuso Ethereum 1 iyo Ethereum 2 marka waa merge waa la isku daraya ka tasala samayn doona waa taa. Laakiin hadda la eego cryptocurrency kale maanta dala wada eego way sawada caadi maanta waxba kama siya wali way yar korayaan wiigor way ka fiican yihiin marka la eego Bitcoin big boy ninka ugu sareeya meesha Bitcoin la meesha xaraan ku haysta waa kan very popular ka shalay waxa inta suuha sidoo u soo dhacay marka waxa islaamka waa xadna wax kala ma xad waa slow economy meel lama furna laakiin waxa islaamka weekend wuxuu noqon doonaa Bitcoin 22,000 EC uu noqon doonaa weekend maanta sans leeyano no doubt ma aragta marka uu kici doonaa uu duuli doonaa cirku gaari doonaa wata marka wax kasta la wada eego kala arkaysa hadaan aynu day trade-ka waa maanta waa 19 buu maraya hal noqon marka 29 kuma ahna waa 19 weeye waa systemka yara slow ah ma aragtay wata marka day trade-ka waa inta maanta inta sum xag wasman qabna gaari 19 iyo 380 gini ma aragta marka waxaan wax ka koraya oo maalin kasta imka safiicnay wiigi hore waan ku fiicanahay wiigi hore waxaan haynayn 17 baan marina dodo aragtay ka san 20 noqon aragtay lambarkana eegnina ka soo mid khalad imka ma garanay systemka yara slow maanta isleeyahay laakiin waa lambarka inta suha dasmaanti gaari marka waa taa balanino balmaanta waxa war cusub laga sheekeynaa inuu balan slow wada akhrino hadana waa inta ka hadlay waa inta this week the coins for Bitcoin and Ethereum see continue growth and merge looms waxa leeyahay warata Bitcoin Ethereum ay isku darmayaan waxaan isku darmayaan halay merge ka growth Ethereum kaba saa kordhay warata qali this crypto market bal crypto market kan this crypto market held a steady week bal fiican socod harga Fedku markay Federal Reserve ka raganeen lacagta kiciyaay xagga bangiyada ku shaqale markii baalkii kiciyeen 75% markay ka dhigeen halkaas 100 noqon lahayd 75 ka dhigeen marka Bitcoin ma alba taas oo si fiicnaatay wax kale ma waxa ku seesaanay dadka inay chance wali haystaan inay ku iibsadeen iyo inay bangiyasha qofkii wuxuu baan oo soo qaato loan lacag amaha markta last week the market wide positive because the price action was sustained and the week's leading cryptocurrency continues to making significant gains because we got it market ku safiicnaaday weekana hore u socda marka waxa ay inuu marketku inuu si fiicnaanayo cryptocurrency oo dhan hadda Bitcoin Ethereum hadda waxa laga hadli Cardano Solana hadda lagu hadlayo waxa ay inuu significant improvement inuu sidii hore ka safiicnaanayo maaragtay taas wax kale ma aha Bitcoin waa very popular dadka waa wada yaqaana waxa lagu leeyahay weekend wuxuu kici doonaa 12% oo 1700 iyo $40 buu gaari doonaa halkan ku soo qoray intana aragta
waxaan wax markaa koraya aan jecel dadkana ka faa'iidaystaan. Like subscribe taabo si qofka maalin kale wax naga faa'iidaysan karo. Maalin kasta video cusub aan soo duubnaa waan eegnaa xagga Bitcoin iyo cryptocurrency marayaan. Sidoo Soomaaliya adduunka meel kasta joogaan ay warkan u gaaro ay uga faa'iidaystaan sanayga dib looga harin oo looga tagin. Maaragtay bal chat waan ku noqonayaa maanta haddana hay chat waa kan haddana waxaan maraynaa maanta intaa eeganina intaas waa khalad. waxaan maraynaa 19 kuma maraynaa maanta. Anu waxaan isleeyahay weekend 19 ma gaariyo weekend wuu kacayaa 22 ma gaariyo waan isleeyahay. taa kadib markuu intaa gaarana wuu horan buu soconay bil kasta 3 kuma ku saabiriyan isleeyahay anigu. wax kale ma hadii marka waxan waa popular economic saar fiican dadka shaqooyin bay haystaan laakiin alaabihii wax kasta qaali oo inflation cirku maraya laakiin dadku waxay doonayaan inuu bitcoin ka kaco marka dadkii marka fara bay yihiin oo way ka daaleen bangiyaasha iyo lacagta badan ee inta laga qaadayo lacagta la saari marka wax kala iibsanayaan marka cryptocurrency waa technology cusub dad badan way eegayaan oo waxay fahmeen waxaan inay fudud tahay si la isticmaalo marka wiigaas inta soo gaari ama isleeyahay anigu sidoo walba like subscribe taabta si qofka looga faa'iideysan karo ana maalin kasta video cusub baan idin soo duuba aad iyo aad baan mahadsantihiin